dhammaadkii bishii saddexaad ee sanadkan 2019 waxaa magaalada Cardiff oo ka tirsan isutaga midowga boqortooyada Ingiriiska ka dhacay kulan ay yeesheen qaar ka mid ah madaxda sare ee xiriirka feerka Soomaaliyeed oo ahaa heer federaal iyo qaar ka mid ah ciyaaryahanada sida khaaska ugu tababaran iyo macallin Xasan oo isagu ah agaasimaha farsamada iyo horumarinta xiriirka feerka Soomaaliyeed sidoo kale waxa goobtaasi ka muuqanayay isku xidhka kulankanina lafdhabar u ahaa xogayaha xiriirka feerka Soomaaliyeed mudane Cabdiraxmaan Cali Mire oo isagu ka mid ah madaalayaashii dib boorka uga jafay maantana soo gaarsiiyay heer caalami waxa kale kulankaasi casho sharafeedka ahaa ka soo qayb galay dhalinyaro Soomaaliyeed oo iyaguna degan magaalada Cardiff oo ah caasimadda Wales isutaga midowga boqortooyada Ingiriiska haddaba hadal badan haama lagama buuxshe waxaan marakan doorbiday inaan idin kala baxo idinka iyo qaabkii qurxoona ee ay xafladaasi u dhacday goobjoogana ay ka ahaayeen qaar ka mid ah bahda Aftaag Production. Assalamu alaikum everyone. ما سنتنا حاول نوقف معنا حفلة عاد كفرق بدن وأجمع هاد علينا على حسن يا رديدي أمر عالية ما أنت عشان تكون هذا مثلا فرقة حريرة فرقة Soomaaliyeed ومن مدة جيفي سيد Soomaali وجيفتي أيا سيد Soomaali وجيفتي أيا ما أنت والحمد لله إنه مالك عن مراي مدة سنة هذا walaalkeen Cabdiraxmaan Cali Mire oo ah xogayaha guud ee xiriirka Soomaaliyeed ee feerka uu isku xilqaamay inuu kiciyo xiriirkaas oo idil maantana xiriirro jiray intaas oo sano ama intaas soo shaqeynayay aan tilaabadu qaaday ka muhiimsan tahay waxa ay sameeyeen iskuma sheegayno in waddankeeni uu burburay muddo ka badan 30 sano qiyaastiina ay wax walba naga dhamaadeen ma aha in macna dawladnimo kaliya aan weynay laakiin noloshii oo dhan baa maaragtay hoos gashay sportiguna sidiisa uu ku xiran yahay si horumar loogu gaaro nabadda asaga nabadda dhaliyo asagana nabad buu u baahan yahay si uu horumar u gaaro loogu sameeyo marka sportigana 30 sano ka bacdi xagee baan ka nimid zero meel eber aan ka nimid marka xagee u soconaa ina caalamka arkaysaan aan ku soo celino ma aha sporting marka kubadii oo kale ama orodadii oo kale intaas oo qaybood Olombikada ay ka kooban tahay sporting ku kooban yahay marka feerka waa qayb muhiim ah oo aragnay maadaama dhalinyaro badan oo dibadda ku koray ay professional ku noqdeen kana soo baxeen kartidooda inay noqdaan dad caalamka arki karo oo isugu jira gabdho iyo wiilalba marka taas waxay nagu dhiirigelisay inaan meesha rabno ugu tagno ama ugu yeerno inoogu yimaadaan oo aan isku soo aruurino aymkana ama waxaan doonayna waxa weeye mustaqbalka in Olombikada awal orada macnaha aan saas culays u ahayn baa jiray laakiin sanadada soo socda Olombikadeena wiilasha yararka ay kuwa ku xiga ama kuwa ku dayn doona ay Olombikada soo saaraan calanka Soomaaliyeed miiska asagoo guulo iyo bilada wata insha Allah marka targetkan waa taas iyo ina ayagu noqdaan dad professional oo dadka caalamka oo kale meel walba ka soo muuqda aan laguna daydo
إن شاء الله سوماليdu waxay leeyihiin isku dayasho haddii aadan soo baxa maanta ama maxamuud ama rashiid ama sureyd la arko kulligeen waxaan soo aadaynaa feerkii isku dayashaan leenahay marka waan rajaynayaa dad lagu daydo oo mustaqbalka maaragtay hogaamiya inay noo noqdaan ومر لبعض وهذه كم هاد علينا الناشئين يقصدون مقالة نروح قدر بدنا وقدر نقصنا قندونا سبب الحريفة معلن كان حسن يعطي بدنا كده مالهم يا إسماعيل بعد بقوا سنتين مدحدي مدتي وباكو إن مدة هو كان خاصة والد كنولا عاون للجوجا سيدا إسماعيل ولكن محمد علي أبو علي أبو علي وأرجع بس كل شيء معناه أتبع نقول فرع السماء أنت إذا وما سنتين thank you so much. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مناسب عاديات بن كتمش في سلام تسلح أمور السلام يا يسوماني أنا وضعون وضعون. أن هالكني فكاد مسؤولي. أن أغير بس كل الجوجا والبيت والجوجا أجلس ولا جودي وجدي أنا. ليش أنا زي ما دوا واش وكادف وكمبيوتر أفواش. ليش وماشي وقت ورا صومال فوق الشيء سبتي. وأنا ماشي مساجد كلهم هني. لقد عمل كورة أول بس يساوي دهان لكن لا تيجي فين وبعد هل كذا مسجد النور بالله يا رب مساجد كلهم يقف نص ومالك كورة يعني سيمانكو إلاش فيف جنريشن وإلى شنس سكتال بعمشان شو هو إسماعيل وكلا تبين for example علي أوكله أبيس علي محمد أو أبي ريب بربروها وسيمانكي هذا كله تاني هذا رجع كنيس ياسين وخلاص هناك بحي وسجل نفسي سوى سيمانكي أنا جا إسماعيل ضد بدن المجال اللي تجيله هذا شيء سيمانكي for example أنا جا هو من 1950 أباي 1942 ضد بدن أو كسوري إذا كتب بيروج أبدا نقول أحسن معي ما أنت يلا نقول قبل حفلتها على كاس ومالي من الأسبوعي أو واحد قوس يعني الأسبوعي عادي أحسن وايو فريفول مرة غير الصومالي هذا يعملوا إذا تشيلوا اللي يرى صوب حيسا سبورت زي محمود رشيد أبا البغادي إن شاء الله في الفيوتشر كنا وحنقول يعني ضد صوب هذا حنقول يعني مقع الصوماليات نقول يعني واحد من يركض الجانب كنا هو مقع الصومالي ويكون سودوينا كمبيوتر أفواش وكادي فوق عانو وعم تشعلها مركا جدا بيسوي هذا النقط راسه قد قشان فلا هو وين هتكون قبضتان هالكن بنتعلم سبورتسكي ومن نبدأ لما يرى سواق عيسى واحد من كبر إلى واحد من أحسن نقول عن سكون الضيدان مقعود نقول صباح سيد ذكر لم يتبع كذا وضع الكيفية اللي كذا وضع قفل وسود ذلك واحد منه كبر إلى يدلودو كبر إلى نفتي زي تشيلسي يسوون يسافر عاصمة الهان مرجو على اللي يرى أكثر بهم لندن بيرمنغهام أول يوكي هو ذا فرطة وهو ذا الشركة إن شاء الله إلى صور الرحى وعام وذا مطلع هل كانوا والله يلا بدهم أطبخ سنسيدا ماشي يسوي استوكرة مجورة هو الصومالي لل كتالة تيجي بي بيوتهم كتالة وهو الصومالي ولقوا برطب وهو الصومالي هذا لقد بحال سود وهذا ميلو بالصومالي كبرت سنتها يعني مكبر هي إلى اليونتي نقطان ميلو ذا جزتان عدو ميل كود عرضنا اللي يريد أن يعبرين إلى يكسر في قربها وحاول تقال لنا يعني واقع قديم البوكس قصة هذه مع قصة على الدود كلام إن شاء الله لمن نقولنا وارد من السلامة يا أنت يدعون ليس أنت فرديدا بوكس كي والدين تودا وهيها إسماعيل وتشكر أنت نود من السلامة يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. First time as a letter coach and
I mean the bleep test. the bleep test. I mean circuit bleep test. Came a bit short, but I mean next time we're gonna do it. So it was really an honor. I'm really thankful. He done really well. Like he come with a bit of an injury, but he's alright. He's doing really well. I'm just speaking on behalf of all the athletes today. They done really well. Sportiga sida la socono wuxuu ku xiran yahay ciyaartooyda yarka dhalinyarada ka soo waalid miraha aan dhihi karno sportiga ku xiran yahay si ubadka u soo baxay markaan weydiisano wiilka ama gabadha masiiya si sportiga uga qaybsanay waxaan inta siinayaa dhinaca waalidiinta waalidiin aad u qiimo badan nala joogaadeen ka caawa walaalkeen cali iyo walaalkeen محمد لبضل سين دونا بعدين واحد نوصل كده دونا على قضاياها الصومالية أنا كنت بقول حفلة الناس إن شاء الله هذا عن فيه ولكن علي سفارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتم وايد السلامي. أبي أعرف حديث هنا نحاول كلاسو قيم كلو حفلة لغو أساسي أما لغو يجرني دليل البوكسينج الصومالية. نقدر نشوفان روبيا أو من فوق يبيت إلى الصومالية. يوكوتش كسير حسن. دمان أدبان السلام يا أنا جو كمل والديك مقالة كاليفورنيا شغلنا سيدا الشيء مقالة أنا مقالة قديمة سادة كل بق أضياء أنا قلت شغلة بسور دوي هذه أدبان يقول السلام يا وأنا ما حسيتهم هذه أدبان أنا وقتها I'd like to thank all the boxers for coming today because I know some of you travelled a long way. This is a historic moment because it's the first time the squad training had ever been participated in. It's first time in Wales, so I'm glad that you all participated today. It's a slow progress. We've done extremely well on a fitness bleep test, just all high scores. We've got a few tournaments coming up now in the future, Gabon and hopefully the African Games now, qualification for the Olympics. And that's going to be in August. Hopefully now, keep moving on, keep moving forward. We're going to have regular squad trainings now. This is going to be coming up every month. We're all getting to know each other. We've got a good team spirit, and hopefully onwards and beyond we'll keep going. Hope we can bring some medals back for Tokyo 2020. Thank you. Thank you. هذا يوم إنني أردت كوتشين كني الله سبحانه وتعالى إنه يرجلي إن ما أنت أنفق بنا مقالة كارديف إن نقص لقد قلنا عياتوي اللي والد كلياته جريشة كيسة هذا الصومالي إن دو الدنيا يوم وده إن كل ده هذا السيمان هذا مركا آدي هذا علنيا وكم هي علي iyo Hassan Rashid wiilkiisa sidoo kale aadan Saheed Maxamuud iyo coachkiisa hadda Nurjoog iyo waxaan u celinayaa dadweynaha reer Cardiff oo dhan ay soo qabshay waxaan sidoo kale aad u celinayaa guddiga Olympiga Soomaaliya oo qayb ka qaatay in la hirgeliyo inay dhacaan ciyaartooyda in ay sameeyaan squad ama training waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa sidoo kale xogayaha Bisakow gudoomiyaha xiriirka firka Soomaaliyeed Cabdullaahi Jaclow
nin mar walba u taagan isboortiga oo si u hirgasho u noqoto mid miradhala maanta waxaa halkan lagu qabtay waxay ahayd training oo lagu sameynaya ciyaartooyda Soomaaliyeed ee boxka in ay guulo ka soo hooyaan ciyaaraha soo socda waxaana traininga bixinaya Xasan oo ah nin kalaab weyn halkaa ku leh muddo ku dhex jiray feerka ahaan jirayna Cardiff qaaday juniorka champion ku ahaa marka Wales-kana mar ciyaaraha waaweyn uu ka qayb galay marka waa nin khabiir xagga feerka waxaan sidoo kale aan marmahan helnaa ciyaartooy leh capacity u qalanto in ay ka qayb galaan ciyaaraha Olombikada iyo ciyaaraha adduunka oo dhan dhici doono waqtiga soo socda waxay isu diyaarinayaan hadda ay ka mid tahay jadwalkeena ciyaarahii ka dhici doono duleera Morocco Rabat sanadka 2019ka ciyaarihii All African Games-ka ay ka mid tahay tan waxaana ka horeeya ciyaaro ay aadi doonaan hadduu la yiraahdo Afrika iyo Gabon oo magaalada Leipzig lagu qaban doono iyo sidoo kale waxaan rajeynaynaa insha Allah ta'ala inay aadaan ciyaaraha Yurub marka ciyaaraha Yurub waxaa noqon doontaa sida Moscow magaalada Moscow oo ka dhici doono ciyaartii Russia oo inay tahay ma hubo laakiin gadaal ayaa laga soo sheegi doonaa insha Allah ta'ala marka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa trainingii maanta xooga lahaa awood lahaa ay sameeyeen inkastoo Rashid oo isku tirigelay oo ahaa masha Allah Soomaaligana xogaayar oo fahmayna laakiin yahalin macnaha motivation u leh inuu gaaro heer waxaan sidoo kale ugu mahadcelinayaa wiilkeena Suhayb iyo Maxamuud oo maanta si fiican u dhameeyay traininga aadan oo muddo ku jiray ciyaarihii ninkii ugu horeeyay waxa uu ka qayb galay ciyaarihii Istanbul oo ka qayb galay maanta la tawaasa dadkii matalay maanta kabtanka meesha kooxda ma sha Allah sidoo kale waxaan rabaa inaan ku soo ganaanado ma aha maanta kaliya Britain oo dhici doonta haddii la yiraahdo waxaan leenahay guul ayaan rajeynayaa dhamaantiina iyo Soomaaliya oo dhan ma sha Allah